السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee ka soo kordhay xaaladda gobolka bariga dhexe qodobada barnaamijka aan idinku hayno waxaa ka mid ah markab Turkigu leeyahay oo nagta laga saaray dhimasho iyo dhaawac shaqaalihii la socday Turkiga oo caraysan halkee buu ka buskicin doonaa wararkii ugu dambeeyay sheekada waan idin hayaa وعشو كلا ندين هيا السعودية إيا بحرين أو سيريا دقنين تأو إسقبصدي يدو لغبقى يوير الركي من يردن كإيران أو لبيك سنيو صلي يدا مريكن كأو حلقا كولي يهي أردن أو لغو قديي مانتا أو نكتا أي إيران كسارتي حالدا حلقا أي مري سوقو دهان قبل كباريغا دحي أي نو برنامجك كفا قدينا inta aan ku jirnaa wararkii ugu dambeeyay ee soo dhacay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa waan hubaa inaad ka hesheen wararkii iyo macluumaadkii aynu ku soo gudbinay barnaamijkaygii subaxnimo ee koobaad oo aad markaa ka hesheen macluumaad xiiso leh haddaba iyadoo warar xiiso leh ay noo soo socdaan marka hore waxaynu ku bilaabaynaa xaalka hadda halkee buu marayaa intaanan barnaamijka duubin ka hor seeriga digniinta ayaa isqabsaday Saudi Arabia meelo kamida iyo Bahrain iyadoo laga baqayo weeraro ka imaanaya dhanka Iran oo lagu beegsanayo saldhigyo Mareykanka uu halkaasi ka joogo haddaba wararkii ugu dambeeyay haddaan idin tuso telefishinka Ruushka ee yiraahdo RT ayaa qoray goor dhaweyd siiriga digniinta in laga maqlay Sacuudiga iyo Bahrain waxaana dadka looga digay digniino ku saabsan inay meelahooda joogaan oo ay taxadaraan haddaba siiriga digniinta ayaa laga maqlay Bahrain iyo meesha la yiraahdo Damaam ee ka tirsan Saudi Arabia haddaba dadka halkaa degan ayaa loogu baaqay inay taxadaraan haddaba wararka qaar ayaa sheegaya in weeraro dhinaca sawaariiqda iyo droniska ah la doonayo in lagu bartilmaameedsado saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay aagagaas marka meelahaas in la soo weeraro marka wali joogtii ma dhicin hadda barnaamijka aan duubay siiriga magaalada Damaam la yiraahdo ee Sacuudiga oo Mareykanku meel ka degan yahay ayaa isqabsaday dadkii waxa loogu baaqay inay joogaan guryahooda taxadar ilaa xaalku dhinac uga baxo oo maartay khatartu ay dhamaato qof dhaqaaqi kara male nin walba gaarigiisa meeshiisa ku damiyay markaas la kala cararay hadda xaalku halkaas uu maraa safaaratul indar aliyada siiriga digniinta haysta hadda Sacuudiga meelo kamida Bahrain waaba iska gurigeeda ayada meesha mar walba joogta ka gelisaa taasoo iyaduna siirigeedu waa iska socdaa waayahay haddaba warkaas uu halkaas ayaan kaga gudbaynaa wararka kale ee barnaamijka aynu ku soo qaadanayno waxa kamid ah Urdun ayaa iyadana goor dhaweyd lagu qadiyay nimanka Iiraaniyiinta ah saldhigyo Mareykanka uu ku leeyahay Urdun ayay duhurkii maanta joogta ka galiyeen Iiraan waa idin sheegay iyaga habeen iyo subax iyo makala lah markay ka qabato dhaxka tuur eberkaaga dhigaysa Mareykan isagu habeenkii xisaab qortaa tii koob iyo tobnaad dhamaatay tii taal dhamaatay tana dhamaatay subaxii warbixin soo saara nimankan waxaas ma qoraan say u joogaan hal meel iska soo aadayaan sheekadoodu markii waa halkaas aan idin tuso ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa la sheegay inay bartilmaameedsadeen laba saldhig oo ku yaalay wadanka Urdun ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen laba saldhig oo mid la yiraahdo Al-Amir Hussein kan kalena waxa la yiraahdaa Malik Faisal waxayna ku yaalaan Urdun haddaba saacado markii ay socdeen iska caabin ay sameynayeen difaacaadka hawada Urdun haddaba waxa la sheegay in qaar kamid ah sawaariiqda iyo diyaaradaha droniska ay ka yimaanayeen dhanka Iiraan ay markaa weeraro ka geysteen gudaha Urdun oo markaa weeraro ay soo qaadeen marka mawjad nimanka Urdun la yiraahdo horta waa la ogaaday Mareykan meesha ukumihiisu ay yaaleenba meesha way Iiraan meesha way ku noqonaysaa diyaarada meel yaala maray duqayso mar airport meel uu degan yahay ay duqayso Urdunna maxay lahayd bilowgii dagaalka maxaana la ka rabaa Mareykan maba jooga halkaan ilaa
hadda war ma jira mareykankii meesha ku dhintaaba mareykan loo qaadaya mareykan ma jooga ma liska yeela ma jirto waxaas marka hadda marka waxay leeyihiin kooxo yar oo tababar u joogtay iyo waxaas tababar miya ha diyaaradaha meesha aanu ku baabi'inayna maxay ahayd ma diyaarada tababar u joogaa marka sheekadii urdun way ku xumaatay urdun marka hadda waxay noqotay suuq caadi looga adeegtay noqotay maalin walba iiraan way ka soo adeeganaysaa urdun baxrayn iyo kuwait waaba customer ay noqdeen macnaha kliyentigoodu waay markii weerar qaadayso saddexdaas laazim waa ku jiraan marka ilaa hadda marka meelaha ka badbaaday weeraradan waa imaaraadka iyo sacuudiga iyo ayaa weeraradu ku yaryihiin xataa qadar wax badan ma ah marmara jugta loo geliyaa laakiin qadar sidii hore ma ah marka meelaha laakiin aadka loo duqaynayo waa dhulkan waay kuwait iyo baxrayn iyo maaragtay iyo urdun waay haddaba marka qaybtaa iyaduna halkaasee kaga gudbaynaa war kaloo muhiima marka noo soo socda oo ku saabsan markab turkigu leeyahay oo jugta laga geliyey dadna lagu dilay dadna lagu dhaawacay turkiga oo caraysan meeluu ka buskiciyaba waa arki doonaa sheekadaas waa u tegaynaa qaybta dambaan kusoo qaadanaynaa laakiin waxaan kasoo hormarinaynaa sheeko kale ra-iisul wasaaraha cusub ee ciraaq ayaa beri oo khamiisa waxaa la shiray wuxuu kusii jeedaa iiraan ninkan maalmo ka hor white house ku joogay aqalka cad wuxuu la soo kulmay donald trump waa nin khatara layidhi ninkan waa nin fiican ciraaq waa ninkii aanu ugu talagalnaa joogay dhaheen maraykan ninkan marka ujeedada safarkiisa inkastoo aan si rasmiya loo shaacin laba ujeedo ayay dadku ku macnaynayaan marka waxaan rabaa inaan fahamno qaar waxay leeyihiin ninkan wuxuu kala hadli doonaa iiraaniyiinta inay ka joojiyaan dalkiisa hubka iyo waxa ay taageerayaan iyo jamaacaadkan iyo kooxahan maraykanka iyo israa'iil kasoo horjeeda ee halkaa jooga iyo xisbullaahida ciraaq iyo waxaan iyo sheekadaas mashruucaasaa la soo geliyaa leeyahay qaar kalena waxay leeyihin waxaas uu og yahay inuusan iiraan ula tegi karin ee waxa waaye waan iyo waxbaa loo soo dhiibay macnaha in uu iiraaniyiinta kala hadlo maraykanka waan iyo qaabka wax loo habaynayo ergey camal qaara iyaguna ku macnaynaya marka haddaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadaas ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa booqanaya berito oo khamiisa iiraan afhayeenka xukuumadda dalka ciraaq ayaa goor dhoweyd sheegay ra-iisul wasaare cali azaydi ninka la yidhaahdo inuu iiraan booqan doono beri oo khamiis ah iyadoo markaa xaaladdu ay markaasi tahay mid laga hadli doono hubka iyo qarannimada ciraaq markaa in arrimahaas iyo waxyaabo kale inuu kala hadli doono inanka iiraaniyiinta way marka ninkan waa nin maaragtay dardar cusub la soo baxayo musuq maasuqaan la dagaalaya dad badanaa la xirxiray lacaga badanaa la soo celiyey wax badan maraykankaa soo dhaweeyey ninkaa marka wuu kacsan yahay laakiin meeshii uu ku dami lahaa waayo haddii ula tago iiraan nimankaan hubka aa siinaysa iyo waxa kadhiya jooji meeshii lagu damin lahaa waayo iiraanna galaangal weynay ku leedaha gudaha ciraaq kooxo dhanaa u jooga meesha marka sheekada iyaduna halkaas ayay maraysaa turkiga markab uu leeyahay ayaa jugta laga geliyay maanta qofna waa lagu dilay shaqaalihii la socday qaar waa lagu dhaawacay turkiga waa xanaaqsan marka markabka xagee lagu helay markabka ma hurmusa lagu helay maalmaha hurmusa jugta laga gelinay maya hurmus baa markabkan wuxuu waday dhuxul wuxuu ka soo qaaday ruushka asagoo badweynta soo maraya dhanka ruushka oo u soo socda waddanka turkiga ayaa inta dhex lagu helay ayaa markabkii jugta laga geliyay waxaa loo malaynayaa niman ukrainiyiina inay heleen ukraine inay heshaan loo malaynayaa turkigii marka hadda wuu caraysan yahay inkastoo uusan weli war rasmiya soo saarin oo qolo gooniya uusan ku eedeyn laakiin waxaa leeyahay turkigu waxay leeyihiin waa aargoosanayna haddaba marka aan idin tuso sheekada turkiga ka caraysiisay ee wararkii ugu dambeeyey ee soo baxaya telefishinka ruushka ee la yidhaahdo RT ayaa wuxuu leeyahay hal qof ayaa dhintay kuwo kalena way ku dhaawacmeen weerar diyaarad daroona ay ku qaaday markab turkigu leeyahay oo waday dhuxul ruushka laga keenay
haddaba markabkan ayaa waxaa la sheegay inuu waday dhuxul waxaana iska lahaa markabkaasi Turkida wuxuuna ka soo shiraacday dekada la yiraahdo Taamaan ee Ruushka ku taala haddaba diyaarad daroon ah ayaa isagoo maraya markabka biyaha caalamiga ee ku dhow dekada la yiraahdo Novorossiysk ee Ruushka ee badda madow ayaa halkaa lagu weeraray waxaana la sheegay inuu markabkan ku sii jooday magaalo la yiraahdo Trabzon oo markaa Turkigu uu leeyahay oo ku taala badda madow haddaba wararka warbaahinta Turkidu waxay leeyihiin waxa ku dhintay qaar ka mid ah shaqaalihii markabka oo markaa hal qof ayaa ku dhintay leeyihiin waxaana la sheegay in uu qarax ka dhashay qaybta matoorka markabka oo diyaaraddu ay weerartay haddaba waxaa la sheegay muwaadinka dhintay inuu ahaa Turki waxaa sidoo kale iyaguna ku dhaawacmay 3 kale ayaa iyaguna waxaa la sheegayaa inay halkaa ku dhaawacmeen haddaba Turkida ayaa la sheegay inay markan ka fakarayso qaabka ay uga falcelinayso sheekadan way Turkiga marka waa la kululay markabkiisii tan la weeraray jugta laga geliyay qof lagu dilay dadna lagu dhaawacay waayadan dhan wuxuu ku celcelinayay badda madow cidna shaqo kuma laha waa meel banaan Ruush iyo Ukraine hadda isdagaalaysa meel kale isku dagaal laakiin hadda maxaa lagu helay badii madoobeed ee caalamiga ahayd oo Turkiga dhinac ka saaray Trabzon magaalada leeyahay laftirkeeda hadda uu socday iyo meelahaas oo dhan badda madoobeed saaray Turkiga halkaas marka lagu helo waa arki doonaa Turkiga qaabka uga falceliyo iyo sida uu uga jawaabo iyo cidda lagu eedeeyo wali ilaa hadda cid lagu eedeeyay oo Turkiga uu yiri cidaas markabkeegii jugta ka gelisay ma jirto laakiin warar warbaahinta Turkidu isla dhaxmarayaan leeyahay cid kale ma ah meeshan yaa isku haystay Ukraine iyo Ruush markabkan intuu ka yimid Ruush waa la weerari kara marka cid kale ma jirto laakiin wax kasta iska dhici kara marka baaritaan lagu hayaa marka waa arki doonaa kulay Turkiga wax badan lagama faa'iidayo asaga mid kale oo imtixaan ah waa arki doonaa wixii soo kordha barnaamijkaygii inta aynu ku soo gabagabeynayna akhbaarta cusub ee soo dhacdana waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkayga kale ee soo socda ee caawa inta aan mar kale kulmayno meel kasto aad joogtaan asxaabay like gareeya oo share gareeya barnaamijka nabadgelyo